كل وقت سلام سو دواذا and waxaan rabay arrin inaan ka hadlo. How come that I don't see anybody? Is there something wrong here? Yeah, now I can see you. Yep. كلكم وقت سلامي سو دواذا يا حسن واي and I have actually bad news. Okay? And waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin ka dhacday Muqdisho. Okay? And waxayna ka dhacday shantii beri ugu dambeysay. Okay? xaqiiqadeedan ku sheegaa marka. Okay? And waana gabadhii labaad oo Muqdisho inta lagu kufsado almost lagu dili rabay laakiin tan waa arrin cusub oo hadeertaan ka socota Muqdisho. I don't know why but anaga fuulo caana kunayno diyaawina kufsado waxa waa ku qalin jibine but soo dhawaada and waxa dhacday arrin laba wiil ka hor gabar oo jaariyad booyas saa u taqaanid oo Muqdisho joogto ayaa oo u dhalatay jirar weyne ayaa naag maxaan ku radaa qadra Cumar la dhaho ayaa shirqooshay oo waxay geysay xaafadii markay geysay xaafadda waxaa deganaa dhalinyaro gabadhii jirarta ahayd waa la xoogay waa la midiyey ka bacdi laakiin gabadhaas waxay ogolaan weysay in la dilo. Okay? way dagaalantay way ka fakatay 6 beri ka hor ayaa haddana waxaa la sameeyey gabar kaleeto ayay wada naagtan qadra la dhahaayo. Okay? waxay geysay xaafadii waxay ka wada reerahoodii waxay u shaqaynaysay taliyaha nabad sugidda ee gobolka maxaa la dhahaa degmada Madiino Wadajir. Okay? ninkaas gurigiisa ka shaqaynaysay ninkaas magaciisa anaa sheegaa u kaadi waxaa la dhahaa Cabdifitaax Xagale taqaanin asaas yaqaano kolley. Okay? gurigiisa ayay ka shaqaynaysay waa laga kaxeeyey xaafad kalaa la geeyey waxaa la dhahay lacag ka badanaa lagu siinayaa soo bax waxa soo wadaayane waa naag la dhaho Fawziya Cumar. Okay? guriga markii la geeyey gabadhii 5 beriyaa lagu haystay meesha waa la fuulay waa la garaacay waa la midiyey wax walbaa lagu sameeyey at the endina cirbadaa lagu duray sun gabadhii markii xaafadihii oo dhan laga raadinayo ee maqleen in la raadinayo gabadhii ayay soo fasaxeen markii ay soo fasaxeen adiga saacado kadib gabadhii waa naf baxday. Okay? marka naagta waxaan samaynayso ayaan kuu sheegaa marka oo gabdhahan saan u shirqoolayso nimanka ay u geynaysana iyadaa taqaano waa islaan qaxaaba oo dhilla waxay u dhalatay qabiilka Majeerteen anaa hadda kuu sheegaayo waxaa qaba nin xawaadle caan la wada yaqaan ninka xawaadle qab waa la wada yaqaanaa magaciisa inta ka dhageysa marka anaa kuu sheegaayo wax la qarinaa ma jirto saaxiibno. waxaa la dhahaa Shirwac Axmed Sandhool Shuure xawaadlo waaye. Okay? agoon Cabdulla waaye misfahane goodax ayuu wuxuu leeyahay la ilmo adeer. Okay? Axmed Dhagax uuna ku magac dheer yahay London uuna degan yahay naagtan qaxbad naagaha shirqoolayso ee naagaha kawda laga siinayo la carbadeynayo la fuulaayo la duubaayo naagtiisa waay 9 cunug u dhashay xamarayna joogta asna Ingiriisku joogaa. Okay? ilmihiisa qaar say la joogaan qaarna waxay joogaan Canada. soo dhawaadano ninka wasiirka waxbarashada goodax waa taqaanin maho goodaxaasaytuu la ilmo adeer yahay asagana waxaa la dhahay Axmed Dhagax xawaadlo waay soo dhow naagtaada wax qasooyino maxaa samaysay markii la xiray gabadhaanayta ee kow ka siisay gabadha la dilay ee hadda naf baxday waxay ka dhimatay 3 cunug. Okay? gabadha waxaa iska dhalay qabiilka la dhaho Dagoodiye iyo dhulbahanta iska dhalay. Okay? 3 cunug ay ka dhimatay waa lagu sheegaa magaceedana don't worry waa qoran yihiin waxaan ka dhacayaan oo dhan waa Madiino. Okay? Madiina ka dhacayaan soo dhawno
أنا كل شيء دمر نعوى لما تنو نينك سودي إيربورك هستو مريحان صوت دمينتي أدينا أذا ورسوغانو naag soo dishay wax daarad ahaan ma usoo kaba gashatay kuu fuulaba hawii waay waa la raadinaya laakiin idaa sheegayso okay meesha inuu qabiil oolna kuu sheega ee wasaq ay joogto wasaqda haddaan la iska qabanin aysan maxay ay tolo soomaaliya dhan ay gacan galayso soo dhawow aawo intay ku qoray gabadha waxaa la dhahaa مليون محمد على مليون محمد إبراهيم مليون إلك عسال دا قبضة أوكي جاري ذي إهات مسكينة ذي إهات ريري وشقينيسي وحي وشقينيسي أن تليها نبت سجدة مدينة وذجرو وشقينيسي حافظي كشقينيسي ناكتا أنا كصوت فوزي عمر لهاي ونينك حواد لأوقبه أحمد دقح أوكي أحمد حالها شروع أحمد شروع dhagaxa ku magac dheertahay London aad degantahay saaxiib sagaal cunug ay ku dhashay naagtaada waa qaxaabo waad ogtahay naagaha in nimankay kala gadaa sharmuuto waay hadhowtine gabdhaha la fuulo oo la dilo eedaa keento gabadhi kaleeto iyadana ka soo qaylinayso mataanaha dhashay way ku lug leedahay waad ogtahay gabadhi jareerta aheedoo ka fakatayna way ku lug lahayd haddeertaana waxa soo damiintay nin mareexaana oo u shaqeeyo xalane okay ayaa soo damiintay ninkeedana London uu joogaa waana xawaadlo soo dhawaadaya marka gabadhiya marka videogeeda idin tusinaa okay daqiiqadii ugu dambeeyay adduunka ay kasii bixaysay iyo cirbadihii sunta ahaa lagu duray iyo arageeda xitaa minkaa bararay 5 beri la saarnay way xasnimo intaas la eg maxay halaysay Fawziya Maxamed Ibrahim waxay la ilmo adeer tahay King Jaamac gabadha fanaanada heesto may la ilmo abti waay ilmo habreed waay okay hooyada dhulbahanta way gabadha aabaheedna waa dagoodiye waa gabadha dhimatay ana idin tusaa marka videogeeda la fiirsado aniga kuwaasayta ma jecliye okay wax badan ma sheegi kari caawo way igu jaran tahay koodhe laakiin waa inaan sheego someone has to say codkeeda inta ka rakibaa marka dhageysta my goodness okay أنا شداية قفك هذا بس sensitive كأ أنا وحاسي تفير سنكرين يسقطك لايف كانيتي هذا أنا وحنا فير سنكرين أو أي كل بس okay because وحنا حذين له مي مقلة وساعدي وقدم بي قبل أي نفتك بحيسي فيديو جل قطوبة سيد الله قلي واتنا داو waa gabar Soomaaliyeed dalka Soomaaliya joogto caruur yar leh ma garatay te iska shaqaalo oo booya soo jaariyad maxay biisay ana ku tusinaano naacda jooje suk حشر عبد الله بعده بالآذن واضح Hold on a second. عدك قاوسنا وكاذية. gabadhaan aa arkaysaan waa mayd hadeertaan laa u naxariisto waa dhimatay okay waxaa la dhahaa Fawziya Maxamed Ibrahim Fawziya ilkacasay ku magac dheereed okay miskiinad yar oo ilmaheeda u shaqaysatay ahayd xamaalato oo booyeese reere u ah marka wakaasay dhageyso marka sakaraadka nolosheeda saacadii u dambeeyay dhageyso xabka fadhiis
على شيء على الراب هذا في الآذان وايد واحد تراك الله سيقرح بدن تاي سكرات واي مع الجامعة تناقض هاكا الله نحرسته اوكي موجودين وتاسامانت على قبور وايته وادمتي ساسيا وقالي ناكلو يي أشر قوشي نن حيوان على أبيسكيال 5 days oo isku xigto gabadhaas la fuulay la dirdilaay meel lagu haystay okay ilaa ay ka dhimatay naf iyadoona wadina banaanka la soo dhigay markii la soo qaadina waaba taas qaar ka dambe waaba soo daysaba nafta okay yaa yeelay naagta la fooziyo gangsterka ugu weyn ee gabdhaha shirqoolo naagaa lagu xumeynaaye naagaa isbursanaaye hadhowtinina markana yeelay dhaha marka idinkaa niman mooryaan ahoo wasakha isu soo kiraysanaayo idinkaa bahalle hadda naagtas waa la soo daayay banaankaa la soo dhigay maxaa lagu soo daayay beel yaa soo damiintay ninka oo xalana haysto odaga mareexaan caada qaataha oo wasakhda magaciisa waa la keenaa okay waa soo socotaa magacaaga sawirkaagana waa la keenaa don't worry okay laakiin naagta magaceeda hadda waxaa la naagta wax shirqooshe waa majeerteen waa qadro cumar la dhahaa iyo tukalo fawziya la dhaho iyadane labadaasayt waa gaangistariyaalka hadda ugu weyn oo gabdhaha shaqaalayaalka iyo lasoo shirqoolo oo xamar waxa waaye ola ba'ana ku socdo okay nimankaanayti magaalada muqdisho haddaana laga qabanin oo naagahaasna aan la tooganin muqdisho waa ku dhamaatino awalba kufsi caana ku ahayd batee dil maa ku darsatay dad cunuubaa kuu dhimanee maxaa u qarxaa dhehe dhow marka dhilaa idin dhashay wasaqdeeda kala jirna cawaante naagta ninkeeda wuxuu joogaa ingiriiska okay naag ilmaha laga soo dhoofsado iyada soomaaliya looga soo taga haddaa aragti dhilo waaye anaa hadda kuu sheegayaba ilmaha naag laga soo dhoofsaday oo iyada xamar ku hertaa ama ku herta soomaaliya qaxaaba dhasha waa haddaan kuu sheegaano kala barna iyada ilmahaas ninka maba u dhalinba sheeganaa waa la isla ogyahay taas waa caan okay laakiin shirwac axmed maxaa la dhahaa shirwac axmed sandhool shuuriye xawaadle okay agoon cabdalle naagtaada waxaan samaynooyo sagaalka cunugtan kuu dhasho waxaan samaynooyo okay waad ogtahay ingiriiskaad joogtaa adaa biilo gurigaasayta naagaha lagu shirqoolaayo ee saan loogu galaayo ilaa nafta ay ka dhacdana saan loogu galaayo gabdhahane waa gurigaaga okay makhayaday leedahay ninka yiri ee kusoo fasaxay ee beelka kusoo daayane waa nin mareexaana oo xalana haysto okay xalanu wuxuu ka yahay nabad sugidda umalayna inuu yahay waxbuu ka yahay adig xamar marka qasdiyi iyo waxa ka socda qas gabadha waa dagoodiyo hooyadeed waa dhulbahanto hooyadeed iyada iyo kin jaamac labadooda hooyaa walaale saa aniga maqal hadda igu soo gaartay gabadha eedadeeday la joogta xamar oo sokor qabto marka 3 cunugoo ay wadato masaakiin waaye iyo maxaa ku dhahay eedadeedaasayta eedaa waxay u shaqaynaysay reerahay u soo shaqaynaysay si ay ku hesho waxay ilmaheeda cunaan
waa laga shirqooshadee aakhiraan loo diray ilmaheedu waa rajo waana agoon waxay u baahan tahay laakiin justice yay uga baahan tahay inti gabar iyo wiil qabtano dowlad ma dhow yacni inti gabar iyo wiil qabto ay uga baahan tahay warcaadne next 3 days waa laga helaano okay naagtaanayta maqaayadeeda hadday meesha kasii shidnaanayso iyo hadday gabdhaha xamar jooga ay saas u kala gadi karto waa la arkaa laakiin odaga xawaadlo dhaladaas madax ka toogo okay dhaladaas madax ka toogo waa ku wada dhasho qaniisaatee waa ogtahay ilmahaasna adiga dhaline habarta daada madax ka toogan guriga ay ku jirto beriya bam lagu rida anaa hadda kuu sheegaabano iyada iyo dhilooyinka meesha ay ku aruuriso iyo alkulistayaalka ay usoo karayso gabdhaha ay u keenta meesha kullihaas la holcaano jawaabteedana waa helaysiin nacalad baana ku taala waxaasaan ku sameey nin ina ma aha naagna ma aha nacalad u dhashay de waaba fadaree saan maa ka dambeys koley last minute markii laga keena banaanka ay kusoo tuureen waa aragtaan say u taalo wiig ka horne gabar jareer weyne aha ka fakatay oo mididii iida la geliyey inta iska siibtay ninkii ku dhaganaa inta isaga gelisay ka carartay oo yaa alla yaa nafsi kusoo baxsatay madiina meesha korontada waa wada ogtihiin okay wax kaleeto sheegay male okay is sad situation lagu kala wada adduunyo gadoontay soomaaliya kuwa coysiin gadoontay ee quruntay muqdisho hal mar ma gubato ma qaraxdo iyada dhanbo waxaa camal markaan arka waay waxaa markaan karho adduunka dhanbo okay but anyway video intuu ku jiraa ma sii dheereynaaye okay abaayo assalaamu calaykum ayaan walaalo calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu weli anoo hadal iga lume ma aragti allah ayaanay ma imaqlaysaa si fiican abaayo halla walaalo horta aad iyo aad baad umahadsantahay arrinkan inaad usoo bandhigto ummadda soomaaliyeed waxaanan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun gabadhaas ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ha u naxariisto maanta waa inaga hooseysaa ayaanay maanta markaan arkay videogaas iyo sawiradaas ilaahay baan ku dhaartay meeshaan jiifsaday ayaan weli jiifaa this is too much walaalo aniga dhanba ma tag baaye waa calool jilcsanay waa aniga kusoo cokora ayaanay I'm not good wallahi aniga dhanbu I don't know saan hays ma garanayo because qof calool jilcsan baanahay I know bye ayaanay walaalo waad u jeedaa gabdhihii soomaaliyeed sida loo gelayo meel kastaba ha joogaan ama muqdisho ha joogaan ama wadamada kale ha joogaan africa oo dhanba gabdhihii soomaaliyeed meel kastay soomaaliya ku nooshahayba gabdhaasiiba gabdhaha booyeesooyinka ama gabdhaha maaragtay jaariyadaha walaalo saasaa loo yeelaa dhibaatay ku nool yihiin xataa kuwa carabaa joogaba saa ku nool oo marna dab lagu dhejinaya marna lagubayaa hadda waxaa ugu daran soomaalidba iyagana waxaa baratay waa gabdhaheenii oo walaalo guryaheena inooga shaqaynaayo caruurteena inoo haynaaya gabadhan hadda waxaa layidhi 3 caruura bay ka tagtay eedadeed oo sokor qabto oo masaakiina bay la joogtay carruurta kaga sii tagtay waa la waasanaa baa layidhi inantan waa la waayey naagihii isku shidaayay ee sacaynayay maaragtay xurgufta ka dhaxaysayna intay shaqooleen bay dabeedna halkaa geeyeen oo markaas hadee say doonaan markii gabadhii xataa la waayey aa layidhi kaalay naga soo doonta maydkiina baktiga kaalay naga soo qaada gabadhi halkan iyo kaale xataa gabadh guriga ma imana waa lasoo qaadaa layidhi ayaana meesha waa laga soo saaray guriga faamiligiibaa dadkiibaa tegayo eedada baa inta carruurtii reer ka carartay soo qaaday baa layidhi inanta iyadoo sidaas ahoo nafti ay ka qaabkii dambe olmareedka nafta kaga jirto waa gabadh da-yarsad wejigeeda loo jeedo si fiican inagaa laynagu eegayaa cod ma haystaan ayaanay adiga coda gabdhaha soomaaliyeed walaalo and thank you so much inaad ka hadashay waxaan leenahay haddaanu nahay gabdhaha soomaaliyed isku duubanoo meel walba adduunka daclays ka jooga dal iyo dabadda gabadhaasi cadaalad ha hesho ilmaheedii yaryaraa silica please walaa qabiil walaa kan walaa kadhiish we don't care dadka ay yihiin laakiin exactly ayaanay waa sidaad sheegtay waxaa tiri maxaa dhow gabdhuhu yidhaahdaan gabdhaha maxaa la yidhahdaa niman baan xumeeyey inagaba walaalasa isu xumeen isu shirqoolayne
inagoo waa gurigeeda gabartii labaad mid jareera ka horeysa moga jaraweyne exactly warku waa dheer yahay every detailsna waa la hayaa wax kasta waa la hayaa codad baa la hayaa faqan waxaa la hayaa sawiro waxaa la hayaa gabadha leeda kuwa shirqoolisa sawiradeeda la hayaa ta kalaa la hayaa sawiradeeda fiidiyoyadii iyo adduunka waxaan malahan waxyaaba fara badan baa la hayaa baa layidhi oo anagu xataa indhahana ku aragnay ina lillahi wa ina ilayhi raajicuun marka gabadhaas ha hesho cadaalad haddii maanta gabadhaas cadaalad loo fali waayo oo qabiil lagu dambabaso bes weeyaan waa inaga dhan waa lana rogayaa because inaga waa lanagu eegayaa ilaahay baan ku dharay gabadhaas maxay galabsatay walaalo ee miskiintahay maxay galabsatay $50 bay waxaa laygu shaqayn jirtay bisha dhan ayaan iyadoo caruurtii haysa oo guriga maydhaysa oo wax walba maydhaysa oo seexanaynin ayay $50 oo kaliya bisha qaadan jirtay $50 ayay nafteeda dambeed u haligtay because of caruurteeda ayay ku masruufaysay $50 oo kaliya ayaa loo qoodi waayay bal ilaahay baan ku dhaariya ka warrama oo naaga ka shaqoosha hoostooday kolley ka heli doonaan naag soo shirqoolaysa ee nin bahala afka u gelinaysa walaasheed ee cirbadahan suntoo laysku duraayo acuudu billaahi min ashaytaan meesha waaba la bahaloobee absolutely kole ayaanay sidan ku maqal badan waa la xidhaa lalahaa oo la qabqabtay qaar waa la soo dayay dee labada naag damiinaa lagu soo dayay gurigii falku ka dhacay gabadhii shirqooshay nin xawaadlo aha ku jiray iyo nin abgaalo labadaas waa xiran yihiin okay labada gabdhood laakiin midaanay maxaa la dhahaa fawziye cumar may fawziyadii tan kale magaceeda muxuu ahaa tolow kaadi bal walaale halkan ku wada qoran inanta horta marxuumada horta dhimatayso malyuun lama dheeran jirin malyuun maxamed ibraahim al dhahaa kin jaamici ilmahabreed yihiin okay oo hooyadeeda dhul baxay walaale exactly saasaa la yiri sinantu waa runtaada qabiilka waa kaas qabiil maanta wuxuu taraya waa kaas akhri kaga jirtaa waxa la aqoonis leh waa maahane naagta waxa dhaqa qadra cumar naagta guriga leh gabdhaha soo shirqoosho marxuumada waxaa la dhahaa malyuun maxamed ibraahim مليون محمد إبراهيم إلهي بلد كداري بالعالمة إيه ولا قبضنا في ضد بيلك ما مركها الله أركو الله على الحمض الله على الحم الله محالين الربية الله محارب قلنا كدارينية الله محان حريص لنا كدارينية الله ناقو الله يعني وانقلوا يا بابا كنا به ناقو يا حب يسوع عن ناقو عدو كوبات والله لا وجد سجريب قواها لكن today I agree with you ولا بل قبضها إلى أن كداري كورن أنت ولا شو سوقاتو oo aad keento meel oo waxaan ku dad cadow gacanta u geliso oo waliba gabadhan xataa intay way fight garaysay oo ma aragtay way isku dadeen la dagaalanto dee maxaa la sameeyay daawooyin baa lagu dalay 3 daawo oo kala nooca jirkada laga helay baa leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun oo lagu duray arbada sunha lagu duray markaas waliba waxa ka daran waxa la leeyahay waxba sheegna because of gabadhan gurigeeda falka dhacay maqaaxideeda ka xumaanayso what the fuck is that dad baa dhintay hooya saddex caruur ka tagtay oo dhimatay kala leeyahay sheegina what's that na walaal wallahi bilaa calo sheekhan uga soo walaal macaan ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaa hine markaasay tiyaa ugu soo kala ordaa calay maqaaxiye leedahay customer ka lumay naagtan eedadeedo sokor qabto iyo 3 cunug oo aabahood aanan joogin ee waxay u ahayd naf iyo nolol lifeline ay u ahayd naag dhanay dishay waaba la soo daayay because of what maqaaxideeda customerka kala dhamaana hadda waa blog yahay hadda marka biste dadka already magaceedana waa sheegtay marka ilaahay ceeb ma astiro walaalay macaanay dhiigga dadku ma qarsoomo dhiigga bini aadamku ma qarsoomo waad u jeedaa maantaba in halka ilaahay subxaanahu wa ta'ala wax walba idinka kashifay dhiigga bini aadamku ma qarsoomo ayaana aad baad u maadsantay walaalo calool xumo wallahi billahi halkan la shifaa ku dhegeysanayay الله بان gabadhaan u soo ducay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu kitaabkeeda gacanta midi ka saar ilaahay inuu janno firdawsi geeyo waad u jeedaan gabadhaa yar quruxda badan hadday ugu weynaato maybe 20 sano meelahaas ay tahay gabadhaa yar quruxda badan waa taa maxay galabsatay waxba walaasheed ayaa shaqooshay
gabar Soomaaliyeed oo kale ayaa sharcooshay war ilaahay miyaan iyadoo gabar kale ku xumaynayso naagaha isdagaa gabar kaleeto gabadhaani ilma adeerihiin isku xumaynayso iyadoo qabiil ahaan u xumaynayso iyadoo u xumaynayso maxaa bayadaan haysanin war heedhaha gacan la barkan doono ilaahay ba og laakiin waa inoo dhammaatay walaale waa inoo dhammaatay si fiican aad baad umahadsantaa ayaana darayeyso arrinkan noo soo bandhigtay thank you walaalo absolutely by videogana waan soo dhigayaa kowdha meeshayda maaqan Facebook inuu aqbali doono in kaleeto do you think videogaas yeah waa naxdin ayaana waxaasna la daawan karaa waa naxdin walaale naftee xulmareed soo dhaaftay waxba loo qaban karaynin dambe dhan waa mayd alaleeyahay gacantii waa mayd lugihii waa mayd inta waa mayd alaleeyahay qarraci leedahay naftee kasii socoto lawaaxatu lilbashar caalamta way xarbinaysaa nafteeday u xarbinaysaa allahu akbar alailahu fudude maanta way naga hooseysaa thank you so much walaal macaan thank you ayaane abba adina caloosha allah ku adkay macaantoy maanta dhina weynaysa koodhe intaas so much walaal thank you so much hayo walaalo assalaamu calaykum love you bye it's so sad it is sad okay yaak Soomaali asuroon miya ha ka dhimatano meesha gabadhan saan loogu garaacay ee loogu rafaadinay 4 nin iyo 2 naaga jooga okay marka meeshan waa la isku jiraa gabadha kale tan run ha loo weydiisto xamar joogto ee mataanaha dhashay naaga soo shirqooshay naag fidna ay ka talinin maba sameeyaba nin wax waa dilaa laakiin nin intuu dilo naag ma disho laakiin naag intay fidna walaaqdo wallahi nin walaaqin soo naag laga qabto na calad baa ku taale damar way soo dhigay marka hadda waay saas wax u galaa waa iik gabdhahoodana markay guriga ku ciilaan dabada markay ka dhalaan gabdhahoodii dhaleen waaya guriga markay ku ciilaano markay cararto oo mid nacasoo doqona ay u gacan gasho oo uurka qaadana waxa dilo ilmaha waa hooyooyinka gabdhahaas dhalay ilmaha boocda la dhigayo musqulaha lagu ridayo hooyooyinkooda sameeyay ilaa mid iyo laba maahane inta kaleeto waardintooda sameeyso ka dhamaadate reality-ga hal imaadano wataasa intay ku jirtaa maaqan Facebook hada caad u soo dhigin la yeeli doono maybe life kanate inuu hadhowti disappointed ku sameyn doono because video uu wato okay laakiin waa daawateen qofka aan arkin gadaal uu ka arkayaa loo duceey gabadhaas ay masaakiinta dhilooyinka saas u galayne xalay jeel ku bariyeen saaka banaanka la soo dhigano because of what because nin kale uu oysano ilin yaxas banaanka la soo dhigay war dumarka hala daay tan dhimateen dumar ma ahmiya hooyo 9 cunug dhatan 3 cunug ka dhimatee yeah okay ani kulay arimahan oo kale ma ka aqaan si looga hadlo laakiin shaqada laga qabtaan aqaanaano adaga xawaadlo ee London joogo naagtaasiti haddaadan sida u dhaamin gurigaaga waa ku day hadaba kulay dawladda la wareegaysa la dhahay guriga laakiin dawladdiiba la wareegin ba dhulka la wareegto guriga dhaawada loo kacinaabano iyadama oo noolaamayso noolaamayso naag dagoodii waano adi habarteeda daarood ma maqasheen dagoodii waano meesha ay joogtana dhul hawiyo waa bal aan arag naagtaada meesha sii joogto marka dhilada idin dhasha wase war naga wada waxaan wax qurunka naanaysi inta isu bixinaysa isu galayaan iyaga dad isugu sokeeyay isu galay iga fogey